السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا FCTV barnaamijka caawa waxaan kusoo qaadanaynaa sirdoonka dalalka Yuhuudda iyo Imaaraadka oo weerar xoog leh kusoo qaaday maamul goboleedka waqooyi bari kaasoo ku dayay in la kala furfuro maamulkaas oo xildhibaanadiisii iyo waxgaradkii la isku dayay in la kala furfuro. dowladda Yuhuudda iyo Imaaraadka ayaa lacag ku bixinaya burburinta qarannimada Soomaaliya ayagoo bilaabay in ay lacag ku bixiyaan isku dirka maamulada dalka iyo iska horkeenida shacabka Soomaaliyeed. isku dirka shacabka Soomaaliyeed waa qabaa'ilada in la iska horkeeno iska horkeenida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaas oo dhan waxay ku bixinayaan sirdoonka Israa'iil iyo kan Imaaraadka lacag aad fara badan. sida aan la socono waxaa ogtihiin in maamulka Puntland dhexdiisa la isku dayayo in maaragtay la isku diro oo madaxweyne Deni uu isticmaalayo inuu xitaa iska horkeeno maamulka Galmudug iyo Puntland asagoo ciidamo aruurinayo. madaxweynaha Puntland Deni ayaa wuxuu maaragtay la shaqeeyaa dalka Imaaraadka iyo Israa'iil kuwaasoo lacag ku bixiya iska horkeenida dalalka Islaamka. tusaale markaa usoo qaadatid burburka dalka Suudaan, burburka dalka Yemen iyo kan Liibiya. ka Soomaaliyana lug weyn ayay ku leeyihiin sidaan la socono waatay maamulka Somaliland iyo dowladda Itoobiya ay xiriir u sameeyeen kaasoo MOU-gii ee dhulka Soomaaliya in Itoobiya la suubiyo la siiyay ay ka soo dhameeyeen. sidaan la socono dalka Iran ayaa waxaa la sheegay madaxweynihii hore Ahmadinejad in ay Israa'iil adeegsatay si uu maaragtay xukunka baalka si uu maaragtay u baabi'iyo awoodda iyo maamulka dalka Israa'iil uu ku leeyahay ayatullaahiga si dowladda islaamiga loo burburiyo taasoo ay jariirada New York Times ay qortay iyadoo cadeymo fara badan ay soo tarayaan. marka dowlad adeegsatay madaxweynihii Iran biyaa Deni iyo Axmed Madoobe iyo Ciro u daahaysa. dalka Soomaaliya duulaan aad u xoog leh ayaa lagu soo qaaday maadaama dalka uu ku yaalo meel muhiim ah oo maaragtay marinka golofka Cadan oo meesha dhan oo maaragtay Yurub ay wax u maraan ah oo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Yemen iyo Eritrea iyo Saudi Arabia ay ku teedsan yihiin iyo dalka Oman oo halka ay ka soo bilaabato badweynta Hindiya iyo iska galaan badda Cas. sida la socotaan Soomaaliya waxaa maaragtay ayaantan ka socda in qarash xoog leh lagu bixinayo si shacabka Soomaaliyeed la isaga horkeeni lahaa oo shacabka Soomaaliyeed la isugu baabin lahaa. madaxweynaha maamulka waqooyi bari Firdhiye ayaa wuxuu sheegay in faragelin shisheeye ay jirto. hadaladiisana waxaa ka mid ah sida sokeeyaha iyo shisheeyaha baaqaya dhammaan bulshada reer waqooyi bari in la ilaaliyo midnimada iyo wada jirka, in laga fogaado kala qaybsanaanta iyo in la adkeeyo wada jirkeenna. dowladda waqooyi bari waxay xoogga saaraysaa ka hortagga faragelinta sokeeyaha iyo shisheeyaha baaqaya dhammaan bulshada reer waqooyi bari in la ilaaliyo midnimada iyo wada jirka, in laga fogaado kala qaybsanaanta iyo in la adkeeyo wada jirkeenna. dowladda waqooyi bari waxay xoogga saaraysaa ka hortagga faragelinta sokeeyaha iyo shisheeyaha baaqaya dhammaan ka hortagga faragelinta sokeeyaha iyo shisheeyaha. shisheeyuhu waa kee? waa Imaaraadka iyo Yuhuudda. waxay adeegsanayaan dad Soomaaliya oo u shaqeynaya suuqyada ayaa waxaa lala wareegayaa ma Soomaali baa tahay mase Puntland baa tahay. maxaa leedahay Puntland bana waraday adina maxaa tahay Soomaali samati Puntland bana Soomaali yaa ka tahay Soomaali maxaa leedahay Puntland bana waraday adina maxaa tahay Soomaali samati Puntland bana. askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan Puntland ayaa dad lacag soo qaatay oo u shaqeynaya sirdoonka dowladaha shisheeye ayaa waxay ku leeyihiin soo Puntland ma tiid madax Soomaaliya. dadkii Puntland ayaa waxaa lagu abuurayaa nacaybkii lagu abuuray dadka Somaliland. waa kan madaxweynihii hore ee Khaatuum State Allah u naxariistay Cali Khaliif Galleer oo ka hadlaya sida loogu abuuray nacaybka Soomaalinimada dadka waqooyi galbeed ee Soomaaliya.
koonfur waa lagu beeray waa layna xasuuqay waa lagu beeray qabiil maxaan baa laynoo laayay waa lagu beeray wax rajo oo aynu ka leenahay meesha ma jiro yaa ku beeray leadershipka SNM baa ku beertay SNM waxay of course iyakuna waxay dagaal ku galaan bay rabeen haddaadan SNM waxay u shaqeynaysay dowladda Israa'iil iyo dowladda Imaaraadka iyo wax la mid ah hadeerna nacaybkaas uu jiraa oo waa laga dhaadhiciyey 30 sano ayaa dadka lagu shubayay Soomaali nacayb maantana Puntland ayaa lagu shubaya sida uu sheegay madaxweyne Firdhiye faragelin shisheeye ayaa jirta waana caddahayo waa tii ay dhacday in baalkii Imaaraadka Carabtu uu faragelin ku sameeyay dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho laga eriyay in uu duulaan ku qaaday guriga Cabdi Qaybdiid asagoo isticmaalaya ciidan Soomaaliyeed ciidamada Soomaaliyeed tababareen u adeegsadeen sida ciidan Imaaraadku uu leeyahay oo kale dalka Imaaraadku wuxuu u shaqeeyaa Israa'iil labadoodana waxay duulaan ku yihiin dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed in la iska hor keeno oo la isku baabi'iyo la doonaya qarannimada Soomaaliya la rabaa in la baabi'iyo dadka Soomaaliyeed ayaa la rabaa nacayb in la dhex dhigo oo ay iskarahiistaan oo isdilaan waxa anaga na dhex maraya iyo dagaaladan iyo qabyaaladda iyo waxa socda wax Soomaali leedahay ma waa wax dibadana la kaga keenay dad Soomaaliyeed ayaa lacag lagu siiyay inay howlahaas qabtaan madaxweyne Firdhiye ayaa wuxuu ka hadlay faragelimaha lagu hayo maamulka waqooyiga bari iyo sida maaragtay asoo ku booriyay dadkiisa inay iskaashadaan waxyaabahaasna ay ka hortagaan oo maaragtay aan maaragtay loo jilcin wuxuu kaloo sheegay kuwii baxay oo aaday Somaliland inay yihiin kuwa maaragtay ku guuldareystay inay burburiyaan maamulka waqooyi bari ayagoo maaragtay doonaya inay indhaha caalamka tusaan in maamulka waqooyi bari uu burburay oo ay ugu laabteen Somaliland hadalada Firdhiyana waxaa ka mid ah sidaan sharaf bay inoo tahay qof kastoo inaga mid reer waqooyi bariyo kaalin buu ku aadan yahay oo aynu ku aaminsannahay inuu naga gudban yahay qofka aynu kaalin muhiima taagno ee aynu ugu caloosha ahayn intii la soo dhaafi lahaa barta aynu taagnay ha ka dhaqa marba mid baa la saaraa qadiyadeennu waxay u baahan tahay inaynu ku fara adayno wakhti gelinno ku faanno halkaynu joogno ku faanno waxa aynu nahay ku faanno dadkeennu iyo bulshadeennu siday wax u qabsan karayaan dowladda waqooyi bari waxay ku dhisan tahay isku tashi waxay ku dhisan tahay midnimo waxay ku dhisan tahay wadajir waxay ku dhisan tahay inay tahay qadiyad aan qof Soomaaliyeed dhibaatadiisa iyo hagardaamadiisa iyo qaranka Soomaaliyeed waxyeeladiisa meel laba laga soo gelin karin bay ku dhisan tahay haddaynu mabda'aas iyo mowqifkaas iyo qadiyadda xambaarsanay reer waqooyi bari dabaylaha dhacayay waxay ruxaan geedka baarkiisa iyo laamihiisa ee jiridiisa ma dhaqaajiyaanay reer waqooyi bari qadiyad bay leeyihiin qadiyadda ay leeyihiin jirid geed adag waa ka weyn tahay dabayl iyo duufaan iyo wax dhaqaajin kara ma ruxi kari doonaan ma jiraan haddii ilaahay yidhaahdo cidda maanta wakhtiga gelinaysa cidda maanta ku fekeraysa reer waqooyi bari siyaabihii waagii hore lagu shaqaysan jiray baa maanta lagaga biyo gaaraya sidaa maqlaysaan madaxweyne Firdhiye wuxuu sheegayaa in ay jiraan duulaamo lagu soo qaaday iyo maamulkaas in la isku dayay in la burburiyo dadkiisa la isku horkeeno waa wax cad waa wixii maaragtay qaar xildhibaano ka mid ah xilka looga qaaday ee Somaliland u aadeen kuwaasoo lacag ku qaatay burburinta maamulkaas dhaqaalahaas aad ku fara badan oo bedelay dadkaas maskaxdooda waa dhaqaalaha ay bixinayaan Israa'iil iyo Imaaraadka lacag yar ma waa lacag fara badan oo fiimo quujo dagaalka ku jirta ogeyd bedeshay oo go'aanka ay u qaadatay inay Somaliland ku laabato si milyan dollarkaas ama 2 milyan dollar ama 5 milyan dollar ay u qaadato danteeda fiirsatay mid Soomaaliyeed ma safiirin
sidee lacagta ku calfan doonto iyo meesha ku cuni doonto ma aqaan sidaan la soconay sirdoonka adduunku lacaga ballan qaado been u suubiyaa hunguri baa la geliyaa hungurigaasna dhow lacagta qofkii been baa loo sheegaa waa laga qaataa oo lama siiyaba Soomaaliya weerar ayaa lagu yahay duulaan xoog leh ayaa lagu soo qaaday qarannimada Soomaaliya inaysan dhismin baa la doonayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waa inay indhahooda furaan ee ogaadaan dadka duulaanka ku ah oo ay fahmaan madaxweyne Firdhiyo oo ka hadlay isla hadalladaas wuxuu yiri oo kale kuwa tegey inay naga tagaan oo bannaanka u soo baxaan way fiicneed joogitaankooda ayaa ka dhib badnaa sababtoo ah inay dadka kala furfuraan maamulkii ay jilaafeeyaan oo dhibaateeyaan ay maaragtay meesha ka imaan lahayd sidaa la socotaan maamulka Puntland madaxweyne Deni ayaa wuxuu wadaa in dowladda federaalka uu maaragtay asagoo ku eedeynaya inay duulaan ku soo tahay inuu weeraro Galmudug macnaha waa lacag baa lagu soo siiyay dagaal sokeeye inuu aas-aaso geliyo Puntland madaxweyne Deni Puntland dad buu ku dilay baarlamaankeedu weeraray wuu burburiyey xoog buu ku haystaa cid ka qaadi karta male Puntland wuxuu ku joogaa xoog ciidamada qaranka ee laga qoray maamulka Puntland eriyadiisana wuxuu doonayaa inuu maqooniyo waa Somaliland la dagaalamay kuwa kamid ah gudoomiyihii hore baarlamaanka Puntland oo ka hadlaya arrimaha iyo gacan ku dhiglinimada Deni markaan dib idin xasuusino dhacdadii baarlamaanka weerarka uu ku qaaday Deni waa kan gudoomiyihii ka hadlaya weeraray xaruntii baarlamaanka Puntland ee uu isagu maamulka madaxweynaha ka ahaa intuu weeraray kulayay ilaaladii joogtay oo dhiigoodii oo qoyan oo aan meydkoodii la aasin haddana kuwii joogay intuu $20,000 u qaybiyey yiri codaya ilaa iyagu doonis ma lehe $20,000 intuu u qaybiyey 58 xildhibaan أنا لعقتي إماراتك يهودا أيا برلمانك بدلنا لو كلا فرفري حوق لو الرئيس عسكرتي لله قدومي دوق حوق لو صاري ماشي نفتي سالس لقلي سيد الله استعماله أحمد الدين شاتك إيران وكالة الله استعماله يا دني وحو كجرا قعنتي إماراتك كجرا ما أهن وحمارك تبعنتي عايز ويديني إنه وأقنا إنه إماراتك لا شقي وقعن صار وين ولا ودقيه هو قولي كله فواحد ما أنت روح سكور كينا يا عيدن كحوق الدلك الصوماليات عيدمada galmudug iyo kuwii Puntland dhexdeedu dagaalka asaasiya wuxuu rabaa dalka inuu ka dhigo sidii Liibiya u burburto kale sidii u burburtay Suudaan sidii Yemen u burburtay asagoo danihiisa gaarka fiirsanaya shirarka gaarka la yeelanaya Imaaraadka dan walba oo Soomaaliyeedna aan dan kala hayn oo ka fikraya kaliya danihiisa gaarka dadka qaar waxay yiraahdaan faraha laga hayaa oo waxyaabo sira laga hayaa oo hadii uu hawsha qaban waayo la soo bandhigaya annagoo arkayna cidna u ogolaan mayno dadkan ducaynta qadiyada waqooyi bari cidna u ogolaan mayno cidna u saamixi mayno in ummadatan ay dhibaatadeedii fursad ay u hesho mar kale cidna ka ogolaan maynaan واجبتا maamul baa inoo dhisan waa ilaahay mahadii gaabis iyo daliil qof kasta u muuqanaya jawaan waan ugu horeeyay u muuqanaysaa laakiin rooma maalin lagu ma dhisin adima dhooba marba mid baa la saaraa qadiyadeenu waxay u baahan tahay inaynu ku fara adayno waqti gelino ku faano halkaynu joogno ku faano waxa aynu nahay ku faano dadkeena iyo bulshadeenu siday wax u qabsan karayaan dawladda waqooyi bari waxay ku dhisan tahay isku tashi macnaha wuxuu u sheegayaa maadaama la yiri dawladda federaalka ma aysan siinin qarashaadkii iyo waxyaabihii looga baahnaa in dawladdu ay siiso maamul goboleedka oo maaragtay qarashaadkii maadaama aysan soo gaarin aysan ka imaan dawladda federaalka wax qarasha oo ku socda waqooyi bari
ayaa dadkii u shaqaynayay shisheeyaha isku dir bilaabeen oo halkaasi waxay ka qaateen jaanis ay leeyihiin war ninkan xasan shiikha waxba nooma hayo maamul goboleed saxa ma nihin wax jira ma nihin waanala maaragtay nala qalday somalilan aan ku laabano macnaha dalkii baa la kala jaraya somalilan waa dalkii ka go-aya oo maaragtay loogu talagalay in soomaaliya la kala jaro marka waxaa la adeegsanayaa luuqad walba oo waddanka lagu kala jari karo sidaan la soconno lacagaha lagu bixinayaa suuqyada lala wareegayaa waa kana puntland waxaa ka socda macnaha yaa ka tahay soomaaliya ka tahay marka hore waxay ahayd aniga soomaali maahiye reer puntland baa maxaa leedahay adu puntland baan nahay waraaday adiguna maxaa tahay puntland baan nahay ninka askarigaana wuxuu yidhi soomaaliya ma yaa ka tahay soomaali weyn baan ka ah puntland identity maaha aqoonsi maaha puntland waa gobol haddaa meel tahay soomaali baa tahay macnaha soomaaliya in la kala jarjaro oo la wiiqo ayaa lacag lagu soo bixiyey macnaha waxaa la raadinayana waxaa weeye bartaas baddaas golof cadan halkaasaa waxaa la rabaa in israa'iil la siiyo in gacanta soomaaliya laga bixiyo meeshaas muhiimka ah ummadda soomaaliyeedna ay noqoto kuwa aan weligood heshiinin dhiiggoodana uu daato danta la leeyahay waa intaas sidaan la soconno heshiiskii MOU-gii Ethiopia iyo Somalilan in heshiiskaas la burburiyo waxaa keenay guusheeda Turkiga iyo Qatar Soomaaliya kadib markii taliyay ciidanka nabad sugidda hore Sambaloolshe uu madaxweyne xasan sheekh ku yiri hawshan aniga aan galay ida oo isla hadleen taliyay nabad sugidda Ethiopia iyo kii Soomaaliya iyo kii Qatar iyo kii meesha Turkiga ay Ethiopia ay yiraahdeen aan ku wada hadalna dalka Imaaraadka uu ka diiday Sambaloolshe uu yiri waxaan ku wada hadlaynaa dalka Qatar sababtoo ah Imaaraadku waa ninka qorshaha dhan ka dambeeyay dalkiisana looma wada hadli karo oo mucaamarad kale iyo dhibaato kale u abuuraya dalka Qatar markii la isugu tagay waxaa dhacday in laga heshiiyey arrintii go'aan laga gaaray heshiiskiina meesha lagu baabiyey waa kana Sambaloolshe ka hadlaya soo arkaan soo karkariyaan waxad maxaa la jiray kan fitaan ma aha kan fidaan isugu tagayaan waxa isfaaca iska celiya la yiraahdaa inuu dawladnimadan faaca iska celi ma ahan inuu nimankaan niyo ana iska reebno waa let me approach them ba approach karay anaga qadar isku tagnay turk safiir waxaan isku geeyay afar taliya qadar waxaan isku geeyay taliyahana isku geeyay turkiga kan qadar kan Ethiopia aniga meeshaas Erdogan aan inta kula hadalna abiyo xasan kula hadalna Erdogan la walaal shirka meeshaas oo qiimida we have mudan soo karkarinin we delivered sababta aan qadar u tagayno waxay ahaaday oo waliba aan turkida u keeno Soomaalida inay hesho assurance meel neutral oo ma assurance xitaa labadan Allah waa waxba ka dhaxeeya aniga markii Ethiopiaanku waxay codsadeen Imaaraadka inaan ku wada hadalno ka diiday ha ku yiri Imaaraadka codsadeen Ethiopiaanka laakiin Ethiopiaanka waxay sidiidi karin Turkiga sababtoo ah Turkigana waxaa kala dhaxeeya heshiisyo waaweyn oo ganacsi iyo maartay kuwa amni marka kuma xadgudbi karaan Turkiga sidaa daraaddeed Soomaaliya waxay ku baxsatay oo jilaafaas ay uga baxsatay Turkiga dartiisa iyo Qatar qofka Soomaaliya waxa loo baahan yahay inuu waxaan u fiirsado Siciid Dani siyaasadda dhinacay ka jooga wuxuu ka joogaa dhinaca Yuhuudda iyo Imaaraadka maxay yihiin waa burbur iyo dhibaato maaragtay Yuhuuddu waxay adeegsanaysaa wax walba oo ay maaragtay Soomaaliya ku baabiin karto si toos ah ma soo galayso waxay soo maraysaa meelo kale inkastoo hadda faragelin sax ah ay wado oo ay Somaliland timid oo maaragtay Somaliland ay aqoonsi beenaad siisay marka macnaha ma la aamini karaa qof walba oo Somaliland ka yimaada inuu maaragtay dawladda federaalka uu meel sare ka tago sida kuwii aan la soconno hore oo maaragtay Soomaaliya xumaanteeda meel walba wareejinaya
cabdi ismaaciil samatar dubbe ninkii la oran jiray bayle kulligood waxay u shaqaynayeen somalilan iyo danaheeda iyo israa'iil danaheeda soomaaliya waxay la soo kabsan la'dahay waxaa weeye dadka noocaas oo kalea siyaasadda adduunka haddaanan saas oola socon oo aanan ka taxadirin oo aan la iska ilaalin dee soomaaliya waxay ku dhacaysaa dhibaatadaas mana loo baahna maaragtay mar walba in maaragtay la isaga socdo waddo aan loo ogeyn meelay ku dhammaanayso sida maaragtay uu ka hadlay allahu naxariis cali khaliif galeer bal dhegeysta mar kale sida nacaybka loogu abuuray dadkan aadan jahayn karin oo wuxu laqimayn oo u tilmaamaynin dee halkanba oo analaf lagu dabamari karaa maahee dhibaatooyinka hadda somalilan gudaheeda ku jira umaba gelayno laakiin waxay micno ku yeelan karaan oo iyaka laftoodu isku duubnaan karaan hadday wax somalilan ka weyn ka mid yihiin oo danaha ay leeyihiinna iyaka oo ay soo jeedaan ooba ay leadershipka la rabo hadday madaxweyne iyo caasimadiiba la siiyo dee laakiin laba ninoo qol madow isku xidhay arrintaa ma go'aamin karaan dadkanna waa lagu beeray nacayb koonfur waa lagu beeray waa layna xasuuqay waa lagu beeray qabiil maxaan baa laynoo laayey waa lagu beeray wax raje oo aynu ka leenahay meesha ma jiro macnaha waa lagu beeray markuu ku leeyahay dad shisheeye ayaa u soo dhiibay in lagu beero waa qorshe loogu talagalay soomaaliya in lagu burburiyo oo dadkan nacayb soomaali la kala geliyo nacaybka hadda sida midkaan oo kalea oo laga abuurayo puntland macnaha bulshadii reer puntland oo dhan ayaa waxaa la gelinayaa horar ah muqdisho laydinka necab yahay hawiya idin necab xasan sheekh daaroodnimo idin nacaya oo idin xumaynaya waxaas waxaa weeye wax ay yuhuuddu faafinaysa wa oo lacag ku bixisay oo imaaraadka iyo deni iyo axmed madoobe iyo loo soo maray ma ahan maaragtay wax runoo jiro saxa maaha dadka soomaaliya waa dad walaalaa meel walbay joogaan waa dad walaalaa laakiin xumaan baa la rabaa in la dhex dhigo dadna necab ayaa adduunka jooga dad jiritaanka soomaaliyeed ka xun ayaa jira marka ma ahan wax easy ah in maaragtay dadka soomaaliyeed la fududaysto in la yihahdo hebelaa ku necab in la iska qaato maaragtay wax la fududaysan kara maaha qofkan soomaaliga muxuu kugu necab yahay waa inay sabab jirtaa laakiin qof lacag la soo siiyey oo buufinaya war beena oo leh waa nala necab yahay waa nala xumeeyey saan baa naloo galay oo dadkii dhallinyaradii ku abuuraya colaad waa wax loogu talagalay wa in soomaaliya la isnacsiiyo wa soomaaliya laakiinse halkee maraysaa dowladda federaalka shaqo fiicanay haysaa allay fiicanay haysataa turkiga haysataa qadaray haysataa wadamada africa ay maaragtay wadamo fara badan oo saaxiiba ka haysataa sida masar oo kale haysataa sacuudi carabiya garab taagan soomaaliya meel cidlama joogto china garab taagan oo diiday in soomaaliya la kala jaro oo somaliland la aqoonsado soomaaliya waddo fiican ku socotaa laakiin inta yartaa reer puntland hadday gartaan deni khiyaanada uu wado sheekada isku dhammaanaysaa just waxaa noo haray keliya inaan ogaano deni iyo meeshu kasoo maaragtay qaato amarada iyo isku dirka meesha looga soo dhiibo waa miiskaas bartaas baa loogu soo qoraa saas yeel lasoo yidhaahdaa marka soomaaliya waxay u baahan tahay in dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedba ay fahmaan sida wax u socdaan oo dalkana amnigiisa iyo aan lagu cayaarin iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waa mahadsantihiin barnaamijka caawa intaasaan kusoo koobayaa anigoo farxaan ceraraa barnaamijka la socodsiinayay follow na soo iraada na soo sheer gareeya noo sheer gareeya iraade like noo saara barnaamijyadan la socda barnaamijyo muhiima oo taabanaya masiirka qarannimada soomaaliya ayaan halkan uga hadlaynaa oo kusoo aruureynaa waa mahadsantihiin